waa qalliinkii labaad oo dhif naadir ah oo mar kale 3 bari gudahood ay wajahayaan takhaatiirta iyo maamulka isbitaalka Banaadir ee hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Muqdisho. Waa hooyo 7 sano canug caloosheeda ku jiray, taasi oo ahayd mid qaadan waa ah. waxaan horey loo arag ahayd markii hooyadu sheegtay in inta ay caloosha ku siiday canugan idin muuqda oo aan ilmo galeenka markiisii hore ku abuurmin, ay hooyadu qaaday uur kale oo ilmo galeenka galay si caadiyana ay u dhashay iyada oo kan caloosha ku sida. Muddo badan oo ay la rafaadaysay hooyo Iisha arrinkan, qalliin ayaa hadda loogu sameeyay isbitaalka Banaadir iyada oo laga soo saaray 7 jirkii caloosheeda in muddo ameydka ku ahaa. Waa tan maama Iisha Aadan oo bukaan jiif ah kana waramaysa wixii ay ku soo sugneed 7 sano ee la soo dhaafay. magacayga Iisha waaye Iisha Aadan Maxamed, waxaan ka imaaday Kismaayo. marka halkan imaatay dhibku ku haystay aad imaatay halkan ku ah xanuunka in lafa igu jiraan oo caloosha ay ku jiraan oo ay ku jireen nimanka ay ku jireen. imisa sano ay ku jireen? 7 sano ay ku jiraan. 7 sano maxaa dareemaysa? xanuun sidee lagu hayay? mahag iyo seemaha dhiigay. 7 sano oo caloosha ay ku jireen, ilmahaas ku jireen, uuran qaaday. uurkiin waa dhalay, gabaraan dhalay, gabadhayda waa 6 jir. halkan waa qolka saalada ee qalliinka loogu sameeyay maama Iisha oo muddo 7 sano ah caloosheeda uu ku raagay canugan yarka ah. waxaa ka warbixinaya kiiskan sida uu wajahay isbitaalka Dr. Xaashi oo ah doctorka baaritaanka iyo qalliinka ku sameeyay maama Iisha. waxaan ahay Dr. Xaashi Abdullaahi Xaashi, takhasuskayga waa general surgery waa qalliinka guud. waxaan kamid ahay dhakhaatiirta isbitaalka Banaadir, gaar ahaan qaybta haweenka. shalay noo imaatay maamo Iisha Maxamed Aadan oo da'deedu ahayd 45 sano. waxay imaatay qaybta bukaan socodka. waxaa qaabilay bukaan socodka Dr. Socdi. kadib waxay u soo dirtay qaybta computerka markaan saarna canugu wuxuu ku dhaganaa mindhicir weynaha qaybtiisa bidix ee hoose ee saxarada qaada. wuxuu kale ku dhaganaa labada fallopian tube iyo ovariska ugxaansidayaasha iyo tubooyinka qaada ukunta ayuu ku dhaganaa. aad wuxuu ugu badnaa qaybta maartay bidixda ah. qalliinka waxaan furnay laboratomy aan sameynay caloosha ayaan furnay. waxaan sameynay classical incision. kadib markii aan furnay caloosha waxaan ugu tagnay peritoneum ka furnay. waxaan aragnay canugan oo almost qiyaastii maas camal u eg oo sidaan isugu jira, sidaan saa isku haysta almost oo capsulkiisii wata. banaankan usoo wada bixinay. markii aan capsulka ka bixinay waxaan ka fujinay meelihii uu ku dhedheganaa sida maxaan ku yiraahdaa ovariga iyo fallopian tube-yada iyo descending colon-ka. Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah ehelka iyo qaraabada Iisha ayaa ka waramaya sida ay ku yimaadeen isbitaalkan. shalay aan keenay OBD-dan keenay. waxaan maqlay mar hore in qalliin meesha lagu sameeyay, maadaama shalay aan keenay waxaan u geeyay OBD Dr. Socdi aan u geeyay. kadibna OBD markaan ka qaaday computerka la geeyay, computer la saaray. takhaatiirta waxay dhaheen inay qalaan ayaa Dr. Xaashi sidii asaalo loo geeyay ayaa lagu qalay, takhaatiirta ay ku qashay. agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Fartuun Shariif Maxamed ayaa sheegtay in bukaankan uu yimid isbitaalka kadib markii uu maqlay bukaan ay isku xanuun ahaayeen oo isbitaalka lagu qalay. waxaan soo aragteen bukaankii labaad oo muddo 3 maalmood gudahood ah hooyo Soomaaliyeed oo nooga imaaday magaalada Kismaayo. wadada muddo 2 maalmood ku soo jirtay, bas soo raacday si adeeg caafimaad ay u hesho. kadib markii familkeedii ay la xiriireen oo magaalada Muqdisho jooga ayna maqleen bukaan muddo 5 sano caloosha canug ugu jiray isbitaal Banaadir lagu qalay. markii la soo xiriireen aan u sheegnay inaan haddii kees la mid uu yahay aan xallin karno. kadibna familkii ay soo qaadeen gabadha Kismaayo ay ka dooneen. alxamdulillah gabadhii nabad ay ku timid. waxaa la marsiiyay bukaan socodka sida caadada ahayd. dhakhaatiirteena oo habeen iyo maalin u taagan ayaa qaabilay. waxaan u sameynay ultrasound. waxay isla nasiib wanaag
waqtigaas ku qornaa doctor cabdulqaadir xaashi oo ka doctor